daawadayaal ku soo dhawaada waraysi aynu la yeelanayno Mustafa Siciid Ceero oo kamid ah dhalinyarada magaalada Ceerigaabo kaasi oo jacayl u qaaday gabadh lagu magacaabo Samaara oo ku magac dheer Mrs Guriceel isla markaasina ku nool maamul goboleedka Galmudug. Mustafa ugu horeyn ku soo dhawow stuudiyaha Ilsar Media ee magaalada Ceerigaabo. ugu horeyn goorma ayuu jacaylkani kugu dhacay? aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan, runtii waan kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga. halkan waxaan ka dirayaa waa fariin dhambaal jacayl dhaba xambaarsan. fariintaas oo aan u dirayo boqorada reer Galmudug reer Burceel Samaara. wuxuu igu dhashay dareenkani imika muddo laga joogo 4 bilood ama 3 bilood meelaha ka hor. in badan baan muuqaaladeeda sawiradeedu ay weheliyahaayeen. kadib markii iyaduna soo bandhigtay inay tahay inta ugu quruxda badan halka ay ku nooshay Gurceel ayaa waxaan go'aansaday aniguna inaan bartayda Facebooka xalay toolo ku daabaco soo bandhigto jacaylkan iyadoo qabo. miyuu jiray jacayl hore idin dhex maray gabadhaasi? waa su'aal muhiim ah runtii. inta badan aan ku xidhnaa boggeeda ama page-keeda baan idhaahdee fariimo way jiraan anigu aan diray laakiinse jawaabaheedu aanay aniga qanacin, taasoo ay macnawiin ay ka dhigan tahay inaanay ka soo jawaabin, laakiinse aan filayo inaan muuqaal ahaan maanta ugu diro kalsooni buuxda aan ku qabo inay ka soo jawaabto. Mustafa, miyaan la is odhan karin arrintan jacaylka aad u qaaday gabadhaas hadda maxaa ku soo beegay maadaama xilligan ay social media si weyn maalmihii u dambeeyay uga muuqatay? waa run Cabdiraxmaanow, jacaylku in badan qofka uu helo ama uu daashado sida uu sheegtaa way adagtay. muddada dheerba waanan baahinuuna, laakiin marxalad stage baan kasoo gudbayay. fariimad badan oo aan diray way jiraan, in badan oo aan xataa marsidii ku fakeray inaan halkay joogto ugu tago way igu jirtay, laakiinse maantaba waxa weeyaan fursadtii ka fiican maadaama aan anigu maqal iyo muuqaalba ugu diray inantii. Guriceel weligaa miyaad aragtay? maan arag, laakiinse qalbigan kala noolahay. taa macnihiin waxa la odhan karaa mar haddii boqorada aan anigu jecelahayba ku nooshahay inaan aniguna iyada la noolahay. waxaanse fariin halkan uga dirayaa maadaama ay tahay qof aniga qanciyay, qof dareenkayga iyo qalbigayga iyo aragtideeda iyo muuqaalkeedu way soo jiitay, inaan meherkeeda ka dhigayo 150 geela, sidoo kalena ballan qaadayo inaan ku casuumo ama aan arooskeeda ka dhigo buurta ugu faca weyn uguna quruxda badan geeyiga Soomaalida ee Somaliland waliba ku taala ee Ceerigaabo ku sii taala ee Daalo la yiraahdo. sidoo kalena aan dejinayo magaalada Hargeysa waliba xaafadda Masalaha si ay naacawda naxariista iyo jawiga macaan ee Jamhuuriyadda Somaliland ay halka uga daawato. Mustafa, dadka qaar baa isle 150 ka geel ayaad ballan qaaday ma heli karo, maxaad arrinta ka oran lahayd? horta ninna kuma faaneen waxyaabaha qaar haddaan soo bandhiganayn. anigu kalsooni buuxdaan ku qabaa, waliba dahab baan ugu darayaa oo maadaama ku casuumayo amaan buurtii Daalo ku aroosayo dahabkiina uga soo baxaya, geelina waa daaqaya. waxa la is odhan karaa waxa jira gabdho kale muxuu ahaayay oo dunida ku nool oo geel intaa ka yar iyo dahab intaa ka yar kugu raacaya. kuwa maxaad ood uga bood? waa run, laakiinse anigu waxaan jeclaabay intaaba inaan uga sii badiyo maadaama ay tahay qof qalbigayga ku weyn, qof boholyo, xiise, dareen gaara, kalgacayl iyo jacayl dhaba baan u hayo. waa run oo way jiraan qaar badan sida feedback ilaa shalay ilaa maanta igu soo noqonayay ay ka dhalanayso in qiimo nooca dad ka yar ama aan ku heli karo, laakiinse waxaan leeyahay jacaylku waa mid, jacaylkaana sababa inaan 150 ka geela ka bixiyo inanta. ilaa muddo intee leeg ayaad jeclayd? san horeba u sheegay waxaan jeclaa adigu 4 bilood ilaa 3 bilood way gaadhaysaa oo bad meelaha intii aan sawirkeedu waliba weheliyaha. maqalka codka iyo jabaqda ay bixinaysa ama jooga iyo dhararka ay leedahayna wuxuu ahaa mid aniga igu seexsha kalgacal iyo farxad. jacaylka aad u qaaday wax maansa ama suugaana ma uga tiris? inkastoona xaggaas ku fiicnayn haddana waxaa jira heeso aan badanaa dhegaysto oo ay ka mid tahay boholyoga xiisuhu ma midaanba aynba boogta igu taala taa laftigeeda waan dhegaystaa moogtay, marka intaasaaba iigu filan. haddiiba ay dalabkaagaa diido maxaa ku talaa? san hore u sheegay horta taasi waa minallaahi, laakiinse waxaan anigu kalsooni ku qabaa. ma yihi shaqsi ku cusub saaxadda xasaawaha ama jacaylka, waxaan ahay nin waayo araga, waxaana aaminsanahay inaan qancinayo soona jiidanayo qalbigeeda.
waxa ay sheegtay in dadka oo dhami ay isku dilaan marka ay soconayso, gaar ahaan marka ay suuqyada marayso, gawaadhidu ay isku dhacaan. maxaad adigu Mustafa kuwaas ay sheegtay kaga duwanta? ma jirto horta waxaanu kaga duwanahay, ma jirto shakhsi usoo bandhigtay dareenkiisa oo waa mid talabaad. waxaan u diidayaaba kumanaanka kuneen la nool maalin kasta aragtideeda ee indhaha ay ku eegayaan. waa sababtaan jeclahayba inaan uga soo dhex kaxaysto oo aan anugu dareen iyo kalgacaylka farxaddaan u hayo taabsiiyo. farxad intee leeg bay kuu leedahay hadday iminka muuqaalkan daawato oo ay ka aqbasho? runtii ma qiyaasi karayo. waxaadba ka garan kartaaba waraysigan iminka bixinayo farxaddayda, taasoo laba jibaarantira ka warran cabdiraxmaano. Mustafa, ma jira jacayl hore oo aad sidan oo kale cid u qaaday? cabdiraxmaano horta lama odhan karo runtii jacayl ima soo helin, laakiinse wuu jiraa jacaylo badan oo igu soo dhacay, qaarkood qabiyoobeen. laakiin kan waxaan odhan karaa maaha mid aan ku guul daraysanayo. maxaad is leedahay buu jacaylkani jacayladii hore kaga duwan yahay? wuxuu kaga duwan yahay jacaylkani waa waxay ahaayeen kuwii hore kuwo aan la noolahay, amaan aragtidoodu igu badan tahay, amaan halgii ku wada sugannahay. laakiinse laba dal baan kala joognaa maanta, weyna iga fogta xiisuuna halkaasu kasii kordhaya. fariintaada u dambaysa aad halkan u marinayso maxay tahay? fariinteeda u dambaysa ee halkan aan u marinayo boqoradda aan ka calmaday geyga soomaalidaan idhaahde waxa weeyaan waa mid qalbigayga ku weyn. waxaana filayaa sidaan anigu u tabayo booliyooga ugu hayo inay iyaduna beerkayga iyo bogayga u bogsiiso. daawadayaal, intaasi waxay noogu soo dhammaaday waraysigii aan la yeelanaynay Mustafa Siciid Ceero oo jacayl u qaaday gabadha lagu magacaabo Mrs. Guriceel. intaaynu ku kulmi doono waraysiga xiga waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.